waxaana wanaagsan dhammaan meeshaad naga daawanaysan halkan waa Hargeysa Online si toos ah uga daawataan website-keena Hargeysa Online SO waa mar kale iyo barnaamijyadii gaarka ah aan uga hadli jirnay xaaladda Soomaaliland kolba halka ay marayso maanta waxaan waraysi gaar ah ka qaadaynaa Yaasin Dagacade oo muddo badan ka tirsanaa xisbiga kulmiye qaybtiisa Ingiriiska muddo badan buu ku jiray xisbiga oo u ololin jiray xisbiga hal mar buu ka baxay xisbigii oo u wareegay xisbiga wadani Yaasin Dagacade marka hore ku soo dhawo Hargeysa Online bal waxaan ku weydiinayaa maxaa kugu kalifay in hal mar aad xisbiga ka cararto aad ka tagto بسم الله الرحمن الرحيم marka hore Hargeysa Online iyo adiga waan salaamayaa teamkaaga kuga halkan inta ka bacdi diyan saasha u galo ala tool wallahi horta duruufu maalin walba duruufta jirta maalin walba waqti jidida jira waxa ku soo beegmay waqtigeedii un baa maanta yimid inaanu ka howlno oo xisbiga wadani imika aqlabiyada haystaan ku soo beerno waan gartay okay markii ugu horeysa maaha markii labaad iyo markii saddexaadna maaha kulay waxaan filayaa kaliya maaha de group baad ku soo baxdeen maalin ka dambeysay kulba group baa ka soo jabeeyay xisbiga kulmiye oo ku soo biirayay xisbiga bal nooga waran muxuu ahaa maxaa koos gareynaya mise markii dawladduba waqtigeedu sii dhamaanaysaba kulba group baa ka soo jabaya oo ku biiraya asxaabta kale bal halka bal dadka aan fahansanin siyaasadda Soomaaliland si deeb ah oo qurbaha tusaalahan ku nool halka u yara sharax horta siyaasaddu waa shay sida dabaysha maalin walba dhinaca ka rogmayso isbedelaysa taana waxay la jaan qaadaa kolba baahiyaha iyo arrimaha iyo ajandayaasha yaala ajandahaagu isbedelo dhinaca kale oo dhinacii ummadda qancinaysay ama raali gelinaysay ama baahidaad dabooleysay haddii laga waayo ajandahaas isbedelay wuxuu keenayaa inuu dadkii meesha gaadhiga saarnana isbedelaan duruufahaas isbedelka badan ee ka dhex dhacaya xisaabta ayaa bedelaya dadka laakiin dadku waa dadkii uun wadankuna wadankiisu bedelo duruufta iyo baahiyaha iyo maxaa la yidhaahdaa ajandayaasha isbedelaya ayaa qofka riixaya inuu isbedelo tareenku joogay maaha tareen kala fuulo taasaa koos garaynaysa wax dhex yaala ma jiraan dadka dhexdooda waan gartay ma la odhan karaa waa sheeko isdabayaaca waayo kolba group baa gelaya xisbi kolba group kale baa ka soo baxaya de kolley Soomaaliland baan sheekada laga arkay laga caalamka kale waxa lagama yaqaano intuu qof xisbi ka baxo haddana xisbi kale galay haddana ka soo baxa tusaale ahaan dad badan waxaa jira halkan magacooda ka sheegay laakiin intii kulmiye ka soo baxeen haddana wadani galay haddana dib ugu noqday kulmiye ma laga yaabo marka inaad mar labaad aad ku noqotaan xisbiga kulmiye horta sunnaha siyaasadda sidan iska isbeddelka meel walba way ka taagan tahay Yurub iyo Mareykan meel walba way isbedeshaa hase yeeshee anagu hadday ka badan tahay dee waa intaynu inagu dimuqraadiyadda fudud u wara qaadanno haddaan ka badana cadadkooda laakiin horta isbeddelka meel walba wuu jiraa imika xisbiga wadani dad badan baa ka baxay intuu isba joogay taa lama dareemayo waayo aan marka loo soo galo loo dareemaya in lagu soo biiray taasa su-aashaashaa su-aal isweydiinaya isagaba dad baa berigii hore ka bixi jiray doorashada intay ka horreysay lama target garayn jirin waayo iminka loo target garaynayaa inuu wadani dad baa kusoo biiray ama loo eryanaya ama miidyadu daba socotaa waxa weeyaan ajandaha hoosido iyo aragtida hoosido iyo fishanku soo wado ayaa dadka u caddaatay halkuu ku wadaa inay tahay meel barwaaqiyo bashbasha taas ayaa xukumaysa inay dadku soo jabaan waan gartay horta xisbiga wadani haddaan ka yara hadallo waxaa muddo badan ama de aasaasay baa de muxuu ahaa Cabdiraxmaan Ciro hadda waxaan aan filayaa inuu mala xaggii guddoomiyenimada wareejiyay isagoo weli noqon madaxweyne wadanka ka noqon waxaa caadi ahayd in xisbiyadu nimanka guddoomiyaasha ay u soo galaan sida jaranjarada oo kale markay doonayaan in xilka wadanka ay ka qabtaan marka Cabdiraxmaan Ciro isagoo weli qaban ayuu xisbigii wareejiyay halka maxaad ka odhan lahayd horta hadalkaas anu ma aaminsani laakiin hadal ka duwan baan aaminsanahay oo ah
gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro weli wuxuu wareejiyey oo gacantiisa ku jirtaa ma jiro xilka gudoomiyuhu waa tartan sidii shalay midiyadaad ka arkaysay hogaamiye xirsi xaaji cali oo yidhi aan murashax baan ahay ayuu murashax ku yahay una weli gudoomiye ku noqon marka shirweynuhu yimaado ee la doorto markaa dee doorasho ku imanaya sidaa ula soco inayna ahayn wax qori laysku dhiibo doorasho ku imanayo gudoomiyuhu una cirona maamulin golaha dhexena maamulin laakiin codku maamulo codka kala saaraya intii qof ay soo sharaxday rag badan baa sharaxan oo soo bixi doona waxa ugu horeeyay xirsi xaaji oo imikaysa sharaxay oo imika isaga la ogyahay inuu rasmi yahay murashaxa imika taagan laakiin waxa odaygu qof ama wax laysku dhaqori dooro maaha xisbigan waa xisbi qaran taasaan anaguna ku raacnay anugu nimidna meesha waa waxa weeyaan mabaadi'daa sida loo ixtiraamayo ayaad adiguna ku joogi kartaa inaad meesha kasii mid noqoto okay yaa marka hadda ka iyo musharax ah xisbiga wadani yaa xilka madaxweynenimada markuu madaxweynaha hadda taagan muuse bixi uu waqtigiisa u dhammaado yaa gelaya tartanka xiga markaa horta waxa murashaxa madaxweynaha soo socda u sharaxan weliya waxaa guddidu haysaa faylkii cabdiraxmaan ciro guddiyaha xisbigana waxa u sharaxan oo faylkiisa lahaya xirsi labadaasaan soo faa iminka weli ognayo oo guddidu faylkoogii haysaa wax kale ma hubno weli wixii ka dambeyn bal ogaan 10 cisho ama 5 cisho wixii ka dambeyn waan gartay waxa caado ahaan jirtay gudoomiyaha xisbiga inuu u taagan yahay xilka madaxweynenimada sida muxuu ahaa Faysal iyo Siranya ay sameeyeenba marka ma la oran karaa marka muxuu ahaa ciro wuxuu wareejinayaa xisbigii isagoona weli gaarin positionkii uu soo galay ama uu sameeyay xisbiga horta sidaan kuu sheegay ajendayaasha u qoran xisbiga ama distoorkiisa ama charterka u yaala ayaa dhigaya inuu isku sharaxo qof ka mid a xisbiga ama hogaamiyahaada ama yunahaadeen ka imika waxaa sharaxan cira sharaxan wuxuu wareejin karaana ma jirto wuxuu ka mas-uul yahayna ma jiro haddii golaha shirweynaha qaran ee layskugu imanaya la soo gudbisto in loo tartamo gudoomiyaha iyo xilalka uu xisbigu leeyahay cidna kama joojinayso qofkii waad u sharaxmi kartaa adigaaga moodka soo sharaxi kartaa berito hore waad isku sharaxi kartaa inaad tahay gudoomiye xisbiga marka gudoomiye xisbiga kuma xidhna wax kale wuxuu ku xidhan yahay waqtiga la joogo ee ah in shirweynihii yaa isa soo sharaxay maadaama uu ku qoran yahay xeerka xisbiga unbaa la waafajinayaa waan gartay ka waran hadda xaaladda guud ee wadankii Somaliland xaaladda guud waa dadka saa nabadgelyadu iska fiican tahay inkastoo dee haddana iska jirto wax yaroo dhaliila oo sida dee xisbiyadu kulle way isriixriixayaan dhaliishu meesha way taalaa inta guud waa iska alxamdulilah iyo dee xanuunkaa jira caabuqaas ee dhibaatada inagu haya mooyaane wax dhibaataya ma jiraan oo iminka sheegan karno odhan karno waxaasaa wadankii haysta meesha ma taalo waan gartay muxuu ahaa doorashada xigta ee ka dhacaysa Somaliland imise xisbiga hadda galaya doorashada sida ku qoran xeerasheena iyo meel walba waxaa gelaya saddexdan xisbi waayo saddexdan xisbi waqtigoogu muu dhicin doorashada dabadeed bay dhacaysaa iyaga ajendooda xisbiyada la jiliyo waqtiguu ka dambeeya doorashada maadaama uu ka dambeeyo waqtigii xisbiyadu dhacayn doorashadu xisbiyo kale meesha uma furna iyo xisbiyo la furo iyo waxaan meesha jirin wax la furayaa ma jirto laakiin kuwan saddexdan qaran ee sharciyeysan mandatekoogina ka dambeeyo baa geli kara cid kale ma geli karto waan gartay xisbiga ka soo baxday ee kulmiye maadaama waraysigeenu ku saabsan yahay asxaabta yaa hadda gudoomiye ka ah yaa hadda u sharaxan xilka madaxweynaha soo socda
sidaan iminka intii iminka waan kasoo baxay intaan ogaa markii gudoomiyaha xisbigu dee waad iska ogto waa madaxweynaha asistentayna isaga termi kale mandate u haystaa sofa wax la odhan karo qof baa bedelay anuu weli ma maqal laakiin saas ayaan kaga yimid inuu madaxweynuhu yahay gudoomiyihii xisbiga haddana uu yahay murashaxa xisbigana uu noqon karo isaga automatically ku qoran xeerka xisbiga waan gartay waa si wanaagsan su-aasha ugu dambeysay yaasiin aan ku weydiinay waxa weeye xisbiga saddexaad ucid isaga yaa u sharaxan yaa guddoomiye ka ah halkii xaaladdiisu maraysa ka ah والله حسب هذا وحسب سجى ويا لا أرميه سهل لكن أنا واحد عينين حسب وثاني أرماء حسب وثاني كتير فيصل واحد بدونية حسبي وحين ترى الكيسة شؤون الداخلية سهل ما كما حد ذكره دانو حسب إنه كمان حبناي هاي ميديا واتكو عن كرت حدو وحي صوص عراني وحكي لكن بدك كما حد ذكر حسب كلام ورانك سجى شرحني سكنا شرحني حرفي نومسين waa si wanaagsan aad baad u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa Yaasin Dagacade oo ahaa xoghayihii hore ee qaybta Ingiriiska ee ka baxay xisbiga Kulmiye isagoo hadda u dig rogtay xisbiga wadani aad baad u mahadsan tahay Yaasin adaan mudan waxaana wanaagsan dhammaan meeshaan naga daawanaysan halkan waa Hargeysa Online si toos ah aad uga daawataan website-keena Hargeysa Online SO waa mar kale iyo wareysi gaara aan ka qaadi doono xubin hore oo ka mid ahayd xisbiga Kulmiye oo la yiraahdo Yaasin Dagacade saan ku ogeyn muddo badan ayuu ka mid tirsanaa xisbiga Kulmiye waliba isagoo aad ugu ololeyn jiray xagga dawladda hal mar